warka kirinka laga keenayaan idin sheegaya goboladan Soomaalida oo dhan gumaysi bay maanta ku jiraan anigu waxaan ka reebayaa ma jirto haba yaraatee gumaysiga ay ku jiraan way kala tagsan yihiin qaar koodna quwa askariya baa lagu haystaa qaar koodna dawcan damac adduunyo iyo ikhtiyaarkooda ku raaceen wada kirin bay wada noqdeen kullu laakiin kirimada Itoobiya haysata ayaan ka hadlayaa maanta من isku magacaabay madaxweyne laakiin maxaan idhaahdaa waxaan ku tilmaamo ma garanayo de madaxweyne mana u qalmo mana aha urfiga adduunyadana madaxweyne kuma aha muslimiinna madaxweyne uma aha waayo qarada caalamka adduunyada Itoobiya u yaqaaniin madaxweynahoodu waa xayla dhisaray madaxweyne ka labaad male dalna laba madaxweyne ahay BBC-da waligaaba madaxweynaha ku tidhaahdee anagu waxaan kuugu yeeraynaa waxa aad tahay kaliya waa maxay barasaab dabadhirif Itoobiyaanka waaba soo barasaab kirimeed baad waliinta mid madax banaan ma tii kirimada la haysto mid kamid aad haysataa waliba waxa tahay runtahay waxay tahay saaxiibada maamulka kirinka kula soo maray ninkii ugu liitay baa tahay haddaad xabashida agtooda amaan ka heshay oo waqtiga lagu baaqiyay sanadii labadii doorasho tobnaad ku socdaan ragii ka horeeyay 5 sanadood hore ma dhamaysan jirin jeelna kama isagoyn jirin adigu waxaad noqotay ibni baari ah حين سلاسياشا أياد باري وانتهاي صفدا أضليد واتا وحانا مركا dadka intii kugu qasbaneed ku hoos joogtay waad baabiisay oo waad fasahaadisay abwaankeeni Soomaaliyeed wuxuu yiri dadna uma sineen reer tolkay dacar ku nooleeyay wuri dadba inta kugu dhawe kugu ag xeeran baad duleysay oo dacada u jabisay oo mishinta uga xidhay oo aad baabiisay inta ka soo hadhayna waad u baaaytaa afka aad ku hadashayna waa af uu ku hadli lahaa nin gumaysiga reer Yurub iyo xabashida afhayeenu ah sidoo hadli lahaa sidii ugu ladnayd baad u hadashay horta sidii ugu ladnayd ayaad u hadashay waxyaabuhu ku hadlay qodobo badan weyn qodob kaliya ka raba qodobkaasi waxa uu yiri geeska Afrika bal ka waran baa la yiraahdo wuxuu geeska Afrika cadow kaliya yeeshay cadowgana qushaash buu bixiyay qushaash idinka shabaab baa tiraadaan buu yiri anigu waxaan leeyahay qushaash waan ku aqaanaa ninkaasi magac bixinta ubba iyo qushaash iyo waxa uu bixiyaa malaabariga hore dabaajirta kamid ahaan jirayo dabaajirtu wax ka naanays badan ma ogta qushaash buu yiri gaalada xabashigu shabaab uu yiraahdaa haddaad adigu qushaash tiri adigu haddaad qushaash tiri xabashigu wuxuu ku yiraahdaa ashabaab uu yiraahdaa qushaash ma yiraahdaa xabashigu yani uu ku afdhaama dhinaca markeedu eegno anigu laakiin waxa doontaba dhaho qushaash iyo wax ka daran dhaho qushaash waxa amaanta ninka yiri wuxuu yiri dibba malabuuri ninka qoriga haystay isqarxinaya mar baanu dili doonaa buu ka dhigantay dibka weyne waxay taagayin buuri madaariska diiniga ee fikirka shabaabka soo saara buu tabtaas uu yiri madaarisku u jeeda Hargeysa koobay ka tahay koow waxaana xog ku haya kuwii agtiisa yaalay bari hore u tashaday xabadi kama hadhin meel xori kama yahdin firqatul habuush baa loo wada dhiibay firqatul habuush ayaa loo wada dhiibay walaalaha iyagii shalay tahanka gaaray u tagu isaga u yeedhay oo ku ballan furay shalay bay iskaga jooga baa lagu runta loo sheegay maanta gidaarkay soo taabteen oo ay ku hungoobeen isagu ciddu dabadhilifka u yahay uu shaqeeyo koow kuwa halkan uu soo baayo wuxuu yiri caalamkan u sheegaya waxa laga qabto maamuladuna waxa ka qabtaan horta meelahan amniga marka tiraadaan amni baan ka warramaynaa isku amni ma banihine waxyaabaha hoos isugu tashataan nooma sheegtaan inta iclaamka marisaan ayaad noo sheegteen inta idin qarsoona Ilaahay baa idin yaqaana hadda u soo socotaan madaariskani diiniga hadda qushaashnimada adiga kugu soo noqotay mar haddaad aslan umadaadii cadowga mijinta u qabataan la dagaalamtaa duleysay labo diintii iyo quraanka iyo sunnada iyo kitaabkii madaariska ka soo baxayna aad maanta qushaash ku sheegtay oo aad leedahay hal dabargooyo macnaha waxa laga qabto macnaheedu waxaan u fasiranaynaa hal dabargooyo albaabada la isugu dhufto waanu saan u fasiran waana sida ujeedada rasmiga tahay halka marka aad joogtana waxaad saxiixdaa oo halka kirinka aad ka talisay ka soo baxa tiiman bicsa oo nasaara oo kiniisada wareegta la yiraahdo ayaa halkaaga sharci ka ah oo gobolada muslimiinta oo dhan ku wareega oo kolba meel dago teenda ka dhisana kiniisada wareegta waad ogashahay meesha wadanka islaamka 100% lagu yahayna waxa ogashay in kiniisad laga dhiso laakiin madrasada quraanka iyo sunnadu inay furnaato ma ogolid xataa halkaad ka talisay iska daaya Soomaalida kale inay ka furnaato ma ogolid waxaan leenahay ninka maxaa jawaab inooga jawaab kale kuma hayne aniga iyo annagaba awooyaasheen iyo ayeeyaasho waxay oran jireen ma taqaanaa waxay oran jireen amxaarka u raayay inta eridaan bal ma arrinkiina Allah ku xidhaan Allah ligu atoor indhaa ka rido Allah ubadkiisa agoon ka dhigay adigay kugu socotaa imika adiga weeyaan waxaan kuugu maahmaahay anigu wax kale kuma oranaye abwaankii fanaankii ciidamadii dawladii siyaad barre kamid ahaan jiray baa waxa uu yiri ahli malaha xabashidu ninkii aaminayo nin abeesa koriyo adigu baa uu aaye adigu bal alanbaq ha ka sokayni waad sarki doontaa annagu waxba ku soo gaarsiin mayne bal alanbaq ha ka sokayni
nimanka madaariska laga hadlayo ee imaqlayo muassasaadka tacliimiga ee madaariska samaystayo way idinkii takarta iska duulinayay ee lahaa wixii sayax inoo soo duwayay irhaab laga urinayay inaga fogeeya way idinka masaajidada kharaabiyay madaariskii muallimiintii murabbiinta wada eriyay ee ku lahaa nasca irhaabiya kugu jirta iscadeeda way idinkii lahaaye way idinkii islahaa wixii la idinku soo dhuuntaba iska fogeeye ma iska fogeysan mise maanta way idinku hortay dacwadii kala burburiso muslimiintii kala shaki geliso mid walba macallin tabarada dhigay waxa la yiraahdaa hadaanad irhaabka sidaa ugu xardhin shaqada wadida xilka wadigaysan way ka dhacday meelo fara badan ragii hoos loola faqay ragii kor loola hay ragii lagu eriyay oo hargeysay joogan يعني لا في النفير ولا في الرعيل مثل وحبه وميدان ترين ما أنت نعيد لمرن يا دلال باتاقن وجوابها هذا مدحونا مكريك ما تكسكو مقعابي كلينك الجميسية وجوابها دي هذا ما أنت مسوي حد الذي ولينا ما تقبلين مياه ولما يرهاب بعض نجورس يعني مش صاعد دين مسيس يسعدين بعد بيقول الله ما نسان إذن كي جواب تسيرين تعلمات والله بالله بنقول دارتي أما إنجليزي دورته أما منهج الرجال بيت دورته هذا أنت الدين تصيح كم يدي دشينا كم مغضى إن إذا اللي كهرين إن ورجينا اللي كهرين لكن وحن يدين شيء جيا شرك كل من الرجل واجيا شرف سنالو وردين تاني قيورين بي هلكن كوزو قاعد قيور كنا ودران ما أنت لو نوري أدين كده هوشين النقطان بني دين كده جيا إن هذه لها النقطان أو تربية دي صحيحة هاي بيقول نقطان أو إذا علماني يا أمحار يا إنجليز يا مريكان يا مناهج تودا أي إذن صورين إذن صورين مدارس كده جيسان تا إننا الدين الإسلام كعيش كهلي وناقنا كقارن ولقين بمدارس واوين دسا مساجد واوين دسا إذا وحن لنا إخواني في الله إلهي إن لله دينا خالصا إلهي وحدون يا الدين برحلة داعي عبادة صافية والربا أو يستصنمه يدمع الدنيا كتير إذن كحيل كان محايدين جاي وكل يوم منصصات كياننا إلى حري صوماها إذن كو بري أمان تاجن أو العيدين إذن كو صديق كريم بايس ديبتينات قولك يسكو حدينات هذا الشرعي